Cabdilaahi Xuseen oo ah wiil 16 jir ah iyo Xaaran Xuseen oo da'deedu 2 jir tahay isla markaasina suuradooda jirka ahaaneed oo abuurka Allah xanuunadaasi maqaarku ku dhacay ay la soo dhasheen waxay ka mid yihiin 7 carruur ah ee ay dhaleen hooyo Felis Dhicis Cali iyo Aabba Xuseen Macalin Nuur oo ku magac dheer Qani waxay degan yihiin xaafadda lixaad ee maamulka magaalada Goday waxay la daaladhacayaan baxnaaninta labadan carruur ee suuradooda ay bedelan tahay isla markaasina ay maqaarkoodu oo xanuunka ku dhacay iyagoo rabbi abuuristooda ay ku dhasheen waxayna inta badan waalidiintu sida ay sheegayaan ay ku dhibaatoodeen oo ay ka tabanayaan waa siday waalidka ubadkan tabaalaysan cadaynay noo cadeeyeen iyadoo ay yihiin dad danyar ah oo aan haysan waxay caagad kariim ah ugu gadaan maadaama uu maqaarkoodu dildilaacsan yahay jirkooda uu xanuunka muuqdo qolfo rabbaani ahna ay saaran yihiin waa kan aabbaha ubadkaasi oo ka warramaya waxaana uu yidhi ilmihii ku xigay ilmo caafimaadsan buu ahaa qadar alluu ilmo saa ku noqday kii saddexaad asagu kalu noqday oo xanuunsan dhibkaana wuu batay maalkii waxaan lahayn reemiyi baan ahayn asaga daawadiisii iyo kareenkiisii iyo biyihiisii uu ku baxay catanaan imaanay magaalada halkan aan ka soo degnay Goday Leeydhaa baan ku noolahay gaal cadaan aan iyo wiilkaasna dhoofiyey arsawna geeyey wax daawo aan wiilkaas la soo siiyey ama ma garanaysaa loo soo qabtay iyo wax isbedel laga soo helay midna ma jirin wax ma garanaysaa ama fira ama ma garanaysaa ayateen hore oo dadkaas u daba higsanayo ama leeyahay firbe u lahaayeen ma jirto waa xanuun qadar alle iyo amar alluun aniga igu imaaday iyo carruurtaas dhibaatadaanadu marka ma yara way aad bay u badan tahay carruurta dhibaatadeed iyo xanuunkeedu aad buu u badan yahay danyar baan hayn maalkii waa tegay abaar iyo waxa kala goostay carruurtii xanuunkeedii qoyskan ayaa waxaa intaa u sii dheer dhibaatada duruufaha hanyaraaneed ee ku gadaaman baxnaaninta labadan carruur iyo masaariifta reerkooda oo labadan waalid midba wax shaqo ah una haynin waxa u dheer dhagaxumada takooridda iyo hoygan oo gabdho ay qurbajoogi awalba si khayriya ugu soo dhiseen ay sheegeen in qorshahagaha ama magaalada Goday ama master balaanku uu marayo walwal iyo walbahaar labaadna ay ugu biirsatay dhinaca kale hooyo Felis Dhicis Cali ayaa iyaduna dhankeeda ka warbixisay xaaladda marxaladaha duruufta adag ee ay la soo martay baxnaaninta carruurta suuradooda rabbi bedelay iyadoo codsi kaalmayn ah ugu dirsatay Soomaalida gaar ahaan deegaanka Soomaalida iyo bulshada weynta muslimiinta ee daafaha dunida ku dhaqan waxaana ay tidhi ciyaalkan aniga dhalay dhibaatooyin badan baan ku qabaa qoftii carruurta dhurwaaga dhashay baa la dhahaa haddaan dhaho aad ka soo adeegatay ciyaalka magaalada dhan baa isugu imaaday ciyaalkayga daawasho loo soo doontaa wax sidaa nooca rafaad badan bay qabaan habeenkii hurdo ma seexdaan oo sidaa biyaha 12 habeenkii oo dhan baan ku rusheeyaa wax irsiq oo eega ay ku haystaan ayaguna mafacaan kareenkooda aan marin hayaan meel aan ugu soo gada waaya wax dawladda hadda ka hor waxa si tiro igu gacan qabato wax igu tartayna maanan arag kaasoo rafaadyaha badan bay qabaan ciyaalku waa ciyaal ilaahay uu ku keenay dhibaatada iyo rafaadka xanuunkan may la soo dhasheen mise waxaad aragtay uun marka ay jiraan muddo may way la soo dhasheen marka iyagoo dildilaacsan oo dhiigga saa uga dareeraya iga imaadeen kaasoo dhibaato maalinka intuu 16 buu jiraa maalinkan maanta iyo maalinku dhashay maanta isku dhibaato uu igu hayaa murugo badan iyo rafaad badan waan qabaa ciyaalaha markaan saa uga baxay u soo doomaraan bay dhurwaagi waqti dhurwaag dhahay isugu imaadaan dhagax u gurtaan dugsi quraanka markaan geynay intaan sii qaadan markaan macallin u geey ka soo noqdaa iskuulaha hadaan geyn lahaa aqligiisa maskaxdiisa waataan iyagu ma nooga cabsanaya hadaba kaasoo waan rafaadsanahay wallahi haday dawladdu wax noo qabanaysa haday bulshada wax noo qabanaysa haday caafimaad nolol daaweynaya hadii maal nala siinhayo nolol waxaan ku irsaaqina wax ku aan ku daawan jirka ka mariniyo hanti nala siinhayo intuu waan uga baahanay dawladda iyo wax walbaba iyo deegaanka kareen baan mariyaa jirka ka mariyaa habeenida kareenkeedana xilli kasta kol baan u waayay habeenka inaga seexanayna hurdada aan anigana murug la seexan waay dhanka kale Cabdilaahi Xuseen oo ah 16 jir curadka reerkan oo suuradiisa rabbi sidan u gartay haddana marnaba kama niyad jabin in barashada quraanka uu aado aroor walba walow ay jiraan falgaboodyo meel ka dhac ah oo ardayda iyo carruuraha uu ka tirsanayo
in ay kula kulmo sida uu isbanoo cadeeyey waxana uu ilaahay u ilhaamiyey in xilliga barashada korka ka xafida maadaama uusan gacmaha waxba ku qori karin qalinna ku qabsan karin oo auna rabbi siinin waa kan isagoo ka sheekeynaya wuxuu kala kulmo bulshada goday gaar ahaan carruurta iyo isagoo ka baxaya ama akhrinaya suurad ka mid qur-aanka magaca Abdullah ma dhigataa qur-aanka ma dhigtaa suuradeed maraysaa amma halkee kugu xanuun badan marka habeenkii jidhka oo dhan haye waka ood olashaa haa waad xoqdaa haye waka carruurta maxay ku yidhahdeen dhirgaaday dhahaan yaa dhirgaaday dhahaan haye waka maxaad dareentaa marka waad ka xanaaqdaa ka xanaaqaa maxaad codsan lahayd markaas in lagu qabto wax kasta codsan lahaa haye بسم الله الرحمن الرحيم يا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا تصدح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا علي برخات تلفزيون كعالمي صار تي في مقالة قضي